السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 1917 وقتي dagaalka adduunka ee koowaad askari Jarmal ah oo magaciisa yahay Otto Bockinger waxa ku dhacay cudurka arthritis. Cudurkani ayaa wuxuu ka dhigay curyaan wuuna awood waayay inuu dhaqdhaqaajiyo kala goosyada jirkiisa. Dhaqaatiirtana wax way ka qaban waayeen cudurkiisa. At that time no solution, they only shook their heads. Markaasi wuxuu bilaabay inuu ku socdo baakoorad. Kadib ayaa qof wuxuu kula taliyay inuu soomo. Otto, you should go on a fast. wuxuu soomay muddo 19 maalmood. Kadib ayaa waxa dhacay mucjiso maalinta 19aad. He had kind of a miracle. All of a sudden he could move all his joints. wuxuu awood u yeeshay inuu dhaqdhaqaajiyo kala goosyada xubnihiisa jirka. wax yar xanuun ayuu dareemay ugu dambeyn laakiin xanuunkii wuu ka baxay. markaas kadib wuxuu bilaabay inuu furto xarun takhasus oo dadka lagu daaweynayo soomitaanka therapeutic fasting soomka daawada. waxaa la furay 1920 ilaa haddana wuu jiraa. xaruntaasna waxaa kala dhexlayay caruurtiisa. marka muuqaalkani maanta waxaan kugu soo bandhigi aragti ka duwan aragtiyada soomka ka aaminsaneed. waxaana ku xaqiijin in soomka uu caafimaad u yahay jirkaada anigoo kaashanayo baaritaano iyo dhaqaatiir aqoon u leh arrintaani. ku soo dhawaada mowduuceena maanta. nicmada uu Allah ku manaystay adoomadiisa ayaa waxa ah in uu u yeelay waqtiyo ku weyn in la cibaadeysto. waqtiyadaasna la badiyo daacooyinka. qofkii dambaabayna loogu dambi dhaafo. sidoo kale qofka loogu ziyaadiyo xasanaadkiisa. waqtiyadaasna Allah naxariistiisa ay soo degto. waqtiyadaasi kuwa ugu fadli badan uguna karaamo badan waxaa ka mid ah bishaani barakeysan ee Ramadaan. waa waqti ku weyn qof walba oo muslim ah. waana bil barakeysan. Allah wuxuu ku dhahay suurada Al-Baqara: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبش بركاتك يا خيراتك. وانا بش صومك يا صلاة. وبش نحريست يا دم ضافك. وبش الاسكحورين يا نارتا. وبش وحبحنتا. وبش إحسان اسكو سمينتا يا وناك اسفرستا. وبش عافماتك. وبش عافماتك. وهدي aan si wanaagsan ugu faa'iideysano bishaani oo caafimaadkaada waxyaabo badan iska bedelayo. Allah wuxuu dhahay: wa an tasuumu khayrun lakum in kuntum ta'lamuun. aayadani waxay ku cadeynaysaa mucjisada weyn ee diinteena la timaaday oo ah inay jiideysay in la soomo. Allahna adoomadiisa kuma farad yeelo ilaa wax maslaxadooda iyo faa'iidadooda ku jirto. waxayna ku tilmaamaan baarayaasha iyo dhaqaatiirta in qofka uu ku soomo maalmo uu yahay wax u wanaagsan jirkiisa bini'aadamka. sidoo kale qofka caafimaadkiisana uu ku jiro si uu ugu takhaluso sunta jirkiisa ku jirto. culimada hadda jiraan fadiilada soomka uu leeyahay aad ay kaga hadleen. ha ahaadaan culimada muslimiinta, ha ahaadaan culimada aan muslimiinta ahayn. caalim ka mid ah culimada ka hadla caafimaadka Mareykanka ku dhashay Mark Fadolfay ayaa wuxuu ku yiri article: soomku wuxuu muhiim u yahay qofka nool haddii uusan xanuunsaneyn xitaa. waxaa imaanaysa in jirka sumuunta ku jirto ama wasaqda jirka ku jirto inay is saarmaan. qofku markaas culeys ay ka dhigayaan. qofku waxay ka dhigayaan qof functionless oo aan waxba qabsan karin, activity-giisa uu yar yahay, ama qof caylana aada ama duusan caylin xataa dad caata waxa arkaysa adan activity-good uu yar yahay sumuunta jirka ku jirto darteed. soomku wuxuu caafimaad u yahay maqaarka, wuxuu caafimaad u yahay sidaan hore u sheegnay xubnaha gudaha ku jiro. marka wuxuu yiri suntaas markay isku aruurto jirka ee traakum ay ku sameeyso waxay sawilaysaa qofka noloshiisa inuu adkaato socodkeeda. soomku waa cibaado hore u jiray oo Allah u qoray ummadihii naga horeeyay. wuxuu dhahay Allah: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إنسانك wuxuu gartay soomka muddo hore, laakiin wax lagu kala duwan yahay ayaa ah waqtiyada la kala soomayo. haddaan soo qaadano taariikhyahanka Herodot ee jiray 450 taariikhda miilaadiga ka hor ayaa wuxuu sheegay in masaarida ay soomi jireen bil walba 3 maalin, iyadoo sidoo kale ay qabeen soon ay dhowr bil soomi jireen ayna ku soo khatami jireen ciidda Afurka. sidoo kale way garteen
dadkii Giriiga hore soomka faa'iidada uu leeyahay wuxuu ku baaqay dhakhtarka caanka Abuqraat in soomka uu daawo u yahay cudurrada qofka gudihiisa ku dhaco. waxaan hadaladiisa ka mid ahay inaa wax cunto adigoo jiran micnaheeda ay tahay waxaa cunto siinaysaa jirada ee micnaha mar walba haddaa cunto cunaysid micnaha jiradii ayaa kuugu ziyaadayso jiradii ayaa quudinaysaa. waxaana fikradaas ku raacay qaar ka mid ah falaasifadii Giriiga sida Socrates iyo Aflaatoon. waxay soomi jireen 10 maalin dhowr bil kadibba. sidoo kale caalimka Pythagoras wuxuu ka mid ahay culimada sheegayay faa'iidada iyo ahmiyadda uu leeyahay soomka. soomka door weyn ayuu ka qaatay dhammaan diimaha ka jira caalamka marka laga reebo diinta Zaradashtiya oo mamnuucday soomka. Zaradashtiyana waxaa loo yaqaan al-Majuusiya, waa diinta Majuuska. waa diintii hore ee Iiraaniyiinta ay aaminsanaan jireen. waxaana ka mid ah imbaraatoriyaadkii aaminsanay diintan imbaraatoriyadii Saasaniyiinta iyo Baartiyiinta. bini'aadamka waxaa jiro faa'iidooyin badan ay ka helaan soomitaanka, iyagoo dadka qaar u arkay inuu nidaaminayo shaqooyinka jirka, asoo ka nadiifinayo haraadiga cuntada, asigoo sidoo kale daaweynayo in badan cudurrada jirka ku dhaca. laakiin baaritaano dhab ah oo cilmiyeysan keliya waxay bilaabeen samayntiisa qarnigii 19aad. ramadaanka faa'iidada uu leeyahay qofka caafimaadkiisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu ku sheegay in soomku uu khayr noo yahay wa an tasumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun. aayad walba quraan aana waxay wadataa mucjizo u gaar ah. markuu ilaahay aayaddaas soo dejinaya mucjizooyinkeeda waxaan ku aragnay nolosheena caadiga ah. mucjizooyinkaasna oo aan ku sheegi doono qaybta caafimaadka ee ka leedahay aayaddaas quraanka ah. ijaaz alcilmi fi qur'aan wax walbuu ka hadlay horta hore. ha ahaato soonka, ha ahaato salaada, ha ahaato wax walboo ku saabsan lifestyle qofka bini'aadamka uu leeyahay. haddaa fiirino kitaabka dhakhtarka caanka ah Edward Dewey ee ahay The True Science of Living ee sanadka 1894 wuxuu dhahay cudur walba oo asiiba insaanka waxaa horumariyo cunitaanka cunto badan. micnaha haddaa cunto badan cuntid cudurka ayaa kuugu ziyaadayo. soomka waxaa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo caadooyinka xun uu qofka bini'aadamka leeyahay. sidoo kale daawo ayuu u noqon karaa sida dadka isticmaalo maandooriyaasha ama mukhadaraadka. dadka mukhadaraadka isticmaalaan waxay u tahay lifestyle change u tahay. qofku wuxuu kaga faa'iideysan karaa bishaan barakeysan inuu noloshiisa uu ku bedelo, inuu noloshiisa qaybta fiican uu ugu bedelo. dadkan sigaarka cabo, tuwaakada cunaan, muxuu ahaay waxyaabahan kale mukhadaraadka isticmaalaan noloshooda si weyn ayay kaga bedeli karaan ramadaanka. caafimaad buuxan ay ku heli karaan. sidoo kale waxaa loo adeegsadaa soomka in lagu daaweeyo xaaladaha qofka sokorta qaba. haddaa waxaa arrintan la samayn jiray intaana lasoo iktishaafin insuliinka. baaritaano ay sameeyeen baarayaal ka tirsan jaamacadda Harvard ayay ku sheegeen in haddii lagu dheedheelo shaqadaha shabakadda mitochondria ee qaaska oo ah unugyada iyadoo la siinayo cunto nidaamsan oo adag iyo soon la kala googoonayo ay ku kaalmaynayso in caafimaadkiisa wanaajiso, sidoo kale ay dheereyso cumrigiisa. marka halkan waxaan kugu soo gudbinayaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka uu leeyahay soomka. waa inta la xaqiijiyey ayna daraasadaha iyo baarayaasha caafimaadka waqtigaana noolnahay jiro ay sheegeen. waxaana ka sii cajiibsan dhakhaatiirta qaar ee reer galbeedka ee mulxidiinta ah aan waxba diin aaminsaneen ayaa waxay ugu yeereen in soomka uu yahay waddo wanaagsan oo lagu daaweyn karo dhowr cudur. wuxuu jirka ka kaalmaynayaa inuu ka takhaluso unugyada hore iyo kuwa zaa'idka ku ah, iyo inuu ka takhaluso unugyada daciifka iyo kuwa aan shaqaynaynin, asigoo jirka siinayo inuu soo ceshto firfircoonadiisa. sidoo kale arrintaasi waxay ka hortag u tahay in qofka uu jirkiisa ku soo baxo buro. sidoo kale wuxuu yareynayaa nisbadda sokorta ku jirta qofka bini'aadamka jirkiisa, wuxuuna xafidayaa in ay isku dheelitirnaadaan, asigoo siinayo qanjirka beeryaraha ee jirka bini'aadamka wax yar oo nasiino ah. sidoo kale faa'iidooyinka uu soomka leeyahay ayaa waxaa ka mid ah wuxuu nusqaaminayaa qofka hadduu yahay qof cayilan wasnigiisa. soomku wuxuu ka qayb qaataa weight loss inuu qofku ku imaado. dad badanaa maanta waxaa arkaysaa inay jiim lacag badan ay ku bixinayaan, in weight loss ama inay miisaankooda ridaan lacag badan ay ku bixinayaan. bas ramadaanka keliya ayaa ku filan qofka inuu ku yimaado weight loss jirkiisa u baahan yahay. soomku wuxuu ka qayb qaataa fat metabolism, in burburinta cadiinta ka qayb qaataa soomka. laakiin waa in ay la socotaa markuu afurayo
in cuntada uu dhexdhexaadiyo uuna ku tarax tegin. sidoo kale qofka bini'aadamka wuxuu ka fogeynayaa xanuunada maskaxda iyo qalbiga ku dhaco. sidoo hore kugu soo sheegay soomku wuxuu nusqaaminayaa qofka cadiinta badan ee jirkiisa iyo kolestaroolka, midaasna waxay ka fogeynaysaa qofka in si lama filaan ah uu ugu dhaco xanuunada qalbiga. sidoo kale soomku wuxuu ka shaqeynayaa inuu ziyaadiyo uuna qaabeeyo nisbada dhiigga jirka bani'aadamka ku jirto. sidoo kale wuxuu ziyaadinayaa oksijiinka. sidoo kale soomka faa'iidooyinka uu leeyahay ayaa waxaa ka mid ah wuxuu qurxinayaa wejigaada, maxaa yeelay wuxuu yareynayaa nabraha yaryar ee qofka ka soo baxo wejigiisa. wuxuu ka qayb qaataa qofka inuu dheefshiidka habdhiska dheefshiidkiisa inuu horumariyo ka qayb qaataa. wuxuu ka qayb qaataa jirdifaaca jirka inuu zaa'idiyo ka qayb qaataa. wuxuu ka qayb qaataa cudurro qaas ah oo qofka haayo inuu soomka hadduu ilaahay qofkaas ku qadaro inuu qofka ka caafimaado cudurradaas. sidoo kale faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu daaweynayo mushkilo badan ee jihaaska dheefmareenka qofka bini'aadamka ku dhaco, sida ziyaadada ashitada iyo qoloonka, iyo qofka hadduu adkaaday dheefshiidkiisa iyo dacaquranka. ugu dambeyn, baaritaankan sameeyey waxaa ii soo baxday inaad ka soomto cuntada in faa'iido u leedahay jirkaada. laakiin isku day markaa afuraysid in cuntadaada isku dheelitirnaado, aadanna cunto badan aadan cunin. haddaa cunto afurka maalintii dhan cuntada iska celinaysay, arrintaasi waxay sababe inaa heli weysid faa'iidada caafimaadka soomka ee hadda aan kuu soo sheegnay. sidoo kale waxaan isku dardaarmaynaa inaad soomka badsataan sidii nabigeena sallallahu calayhi wasallam inoogu dardaarmay. rasuulka wuxuu ku dhahay xadiis ku jira saxiixeenka uu wariyey cabdillaahi bin camr, soomka ugu fadli badan uu qofka soomo waa soomka daawuud. wuxuu soomi jiray maalin wuxuuna afuri jiray maalin. qof walboo jiran waxaan u rajaynayaa caafimaad taam.